شادية شرف aadi aad soo dhawaada maasha Allah waxaan marti ku ahay janalka walaalka Akshay oo aan markii ugu horeysay aan ka soo muuqday horta Ramadaan Kariim idin leeyahay sidaad ogtiin waxaan joogaa Turkiga qaasatan waxaan isla joognaa inta badan walaalka Akshay sidaas la ajligeeda waan ku faraxsanahay inaan ka soo muuqdo janalkiisa maasha Allah inta soo aadaado walaal macaan barnaamij waxaan sameynaa kaan igu nafis caawana waxaa farxad weyn noo walaashin Shaadiya inaan nafisino wax badan oo ku dhex jira ee dadka isweydiina inaan ku weydiiyaan rabaa insha Allah waxaan rajaynayaa inaan nooga jawaabto su'aalaha tan macquul ma laga jawaabi karaa wax ka dhici karta warka ku dhan waa weydiin kartaa waxaan ku weydiinaa sidaan wada ognahay maalmaha dambe anigu ku jirno bishii fadliga badneed bishii qayrka badneed waxaa socod wax la yiraahdo fariinka mas'uuliyadda wadaysanaa ma dabeecadeen naga noqoto ma aha bishan zaid waa bilow bismillah bishan waxaas dhahay dadka tubada oo jarmalka ma soo raacoyin yaa furiin ma dhigi kari faadum bint rasuul walaashin Shaadiyana dadkii lagu soo eedeeyay aan kamid ahay maxkamadda ciidan waxaa sawirada la soo sameeyay Shaadiya ama ku ahad Shaadiya iftaxyare atoora iyo triishada feeling tan kale labadiina waxa ahaydeen wallahi been ku sheegay labada lamaano oo dadka lamaanayaasha aan taageera kamid ahaydeen marka oh my god you're after dhulka soo xaqay ay ma sha Allah nooga dhinta camal oo naxay mahadsanid markii dambana kulay runta ilaaha walaalana meesha wuxuu fadhisaa inuu runta sheegto maxaa ka jira waxa socda Shaadiya waxaan ku weydiinaa ko horta waxa la sheegay Soomaali waxa la waxay sheegto waxuna ka jira aadi qof been buu qosadaan asta wiiri been buu soo baxay ana ka shaafina taas maxaa ka jira horta soo dhawow asxaabtaadana waa soo dhaweynaya mar kale horta waxa jirta malal dhaho inta badan runta way sheegaan waa run laakiin waxa jirta wax malal dhaho oo qofka bini'aadamka oo labada qof saaxiibo markay yihiin oo kale oo social media badan la isku arki waayo waxa cabir la saarta ama la cabirta inay isku dhacsan yihiin sidoo kale labada ninka iyo naagtana markii la isku arki waayo waxay dadka u maleeyaan inay kala tageen horta waa sax oo maaragtay bariyahan dambe ani Cabdifataax waxba isla ma soo duuduubeenin waxbana maaragtay isla ma sameeyneenin YouTube hadee noqoto hadii dhan walba ay noqoto oo social media aan ka isticmaalo horta aniga waxa safaraa iska jiray qofkana markuu safar yahay safar waaba safar qof baxay waay mogt qof joogo iyo qof maqanna waa way adagtahay sida isku arkaan ama sida isku maaragtay wax isku duubaan inta badan xoogaa shacbaan soo dhawaa ogeed aroosyadana sambuuskan xariif walba oo iskaabal wuxuu isleeyahay xaajidaada macna sambuuska ku kariso marka aroosya badan tumaayay waa baxay waxaan tagay Nairobi aan tagay xoogaa waxaan soo joogay 22 bari adalaatidoo bari bil ku dhawaada soo joogay isla markii haddana meeshan waxaan u imaaday howlo shaqo sidaad ogtahay adigaba aan u imaaday marka xagga markaan tagaba gurigeyga 10 bari miya 8 bari aan joogay isla markiina waan soo noqday waxaan imaaday Turkiga marka intaas qof laba qof oo adiga 40 bari amba 45 bari kala maqanna waa iska dareemi kartaa ma ogtahay waxa la isdhigi karaa sax waaye waa isfurina isdhigi kartaa maxaa ku dhac Shaadiya Cabdifataax bariyahan wax masla soo duubaan wax la isweydiinay marka waxa isdheesaa labadan way kala tageen maadaama oo dadka social media badana inta la isguursada la kala tago horta waxa ana Cabdifataax ma kala tagin marka runta laga hadlo alxamdulillah beenna inaan maaragtay sheego ma haboono ma fahantay qof laani Cabdifataax waan isqabnaade intaan kadib waxaan sameeyo ma aqaano inaa dadka isweydiiyaan waxa waaye wali u badan tahay gabdhayna isweydiiyaan ayadoo bil Ramadaan tahay see macquul ku noqon kartaa ninkeedana ka maqnaa howlo shaqo darteeda ugu soo maqnaada waliba wiilkayga iyo xaajigayga saas darteeda ugu soo tagay maasha Allah marka saasa keentay inaan maaragtay wayna dhacdaa boo sometimes dad family oo shaqo kala geeso amba ma fahantay marka waa ka saas wax jiraan hubka xiriirkiina adii iyo Cabdifataax intaad iskursanin ka hor intii lagu soo darto dad marka isbarteen horay guur iska guursadeen ma yamanihin ani Cabdifataax waxaan isla soconay 2 sano 2 sano xiriir jacayl isla soconay alaabti oo taleefanka dami ana daminaya dhankaana taleefanka bateriga marmar waa ugu qarxi jiray
subax walba farmashiyo marka way adag tahay laba qof oo 2 sano xiriir soo sameeyay soo wada socday oo isfahansan in si fudud ku kala tagaan haddana Fataax iyo Shaadiya laba qof oo dhalin laba qof aad isku fahansan waay aad ana waxa dhigi karaa Shaadiya dhaqanka ay sameysay gabar kasto Soomaaliya ma sameyso waa wax sax ana waxa ka dhaxalkan ka hadlaa Shaadiya sababta intuu joogto iyo sababta Nairobi aad inta dhan anaga waa ogna hadda walaasha ayada noo sheegtay sax waxaa jira familka si u wada joogan maaragtay waxa mar walba qurux badan qaacidadan hal qaato ay walaashii sameynayso haddii la isku agdaaho maanta dhan xoogaa dhalan ma yeelanayso intaasoo sanaa la isla noolaa walaasha waxay samayso waxa leedahay space kala footo space nolosha waqti yar yani hadhow markay isku laabtaan meesha kasii wadanaya haddana bahasha dhadhan yeelan marka walaasha dhadhan u yeere marka gabar kasto ama wiil kasto waxaa kula talaa يا صلي تصور فلسي حالك اللي صحيح سبيس الحمد لله ولا شيء حاجة هذيك اللي جيني سان جوجي dhulka aadin la dheh waxaan idinku darsanaa tali tusaale ma aha dhanka xumaanta in loo fikiro mar walba dhanka wanaagan waa loo fikiraa inkastoo hadda social media haba iska dhibbatay oo qof walba views iyo lacag uu raadinayo laakiin qof walaalka sharaftiisa iyo qoyskiisa iyo quruxdiisa ha ku dhaafsanin lacag iyo magac ma garatay marka xaaji qiiro أنا وعاوضة وأركي تاحي شادي أيوة وهذا ما كذا كانت تجمع ما عاديات مرة بالصوب عن بالصوح وأنا كنت أتاين تاي عاش أنت نابلي ما شيء أسكو قرحين شيء أسكو بوزتان كلام تجرون كمركزين قناة أوكي سودوين بالعربي ها سودوين قرن يا والله معن آد وما تصنتحي شرفت اسمه عبد العرفنت إنه شيء نادي حاجة كذا تجين وحيد كود عيننا أنا جو بدن نقولين كذا تجينا عاد عايزين إلهي يكسي بالهاريو نوش هذيك أسوق فرحين كمان سيد عادي يعني الحلمة من عدي سانو كلا إن عضو والعبار اللي اسكو ده سبيس على كلاقات هذا مركز اسكو لعبني سي عدد إيو رنون أسكو رقدي وكان أكشي بودكاست إنترلوك أنا ولا لي سينجل هاي نفان سينجل أنا قط إنت قصة عجارة بتكون قط حبض ماشي صارت بالله ما أنا تأثير تاني سينجل أنا قطعها سينجل بتيت ما هو ولقيها ميا وبالق يوضم وبارتم كدي كري عجيب مستقبل هذا واحد شيء في رفضان